sheekh wuxuu ku socdaa wadanka meeshii ugu halista badneed wixii shalay uu ka digayo maanta ku dhaqmaya madaxweynuhu shalay hadaa diidinayd in wadankan sharci darro iyo xoog la isku maqooniyo maanta inaad adigu horseeto waa nasiib darro wadanka dagaalada ka socda waa la socotiin wax geeda ka socda ma indhaha laga qabsan karaa wax ka socda SSC ma laga qabsan karaa wax ka socda gobolka Bayma laga socda Soomaali oo dhan maanta waxa ka socda dagaal qabaliya waxa bilowday hub gadashadii ugu bulshada Soomaaliyeed xoreyn bay u baahan tahay nabadeyn bay u baahan tahay dib u heshiisiin madaxweynaha kama hadlin ilaahay idinku dharshay shalay kaliya meeqa ku dhintay oo galgaduud meeqa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda rabbil caalamiin waxaan rabnaa shirkeena jaraa'id ku saabsanaan doonaa wax maanta ka dhacay baarlamaanka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo labada aqal ay ku shirsanaayeen taas oo sababtay in wax sharci darro ah golaha markiisii ugu horeysanayn aan ahayn oo mar dhowr jeer ay dhacday sidaan oo kale in sharci darro golaha la yimaado baarlamaanka la dhageysan waayo xubnihii ka aragtida doonaa in wixii la doon laga doodo la diido in mataqaana baarlamaankii oo sharciyan xirmay oo wax yar ka dhiman yihiin in ay haddana la sii furo waxaad la socotiin baarlamaanka sharci ma aha markuu sii gabagabo in sharci cusub la keeno sharci ma aha waxaad la socotiin wadanka waxa ka socda madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku socdaa wadanka meeshii ugu halista badneed wixii shalay uu ka digayo maanta ku dhaqmaya madaxweynuhu shalay hadaa diidinayd in wadankan sharci darro iyo xoog la isku maqooniyo maanta inaad adigu horseeto waa nasiib darro oday wadankan hore 5 sano soo maamulay 5 sano mucaarad soo ahayd waaye arag inaad tahay la filay laakiin waxaad ku dhaqmaysid maanta ma aha waa nasiib darro wadanka dagaalada ka socda waa la socotiin wax geeda ka socda ma indhaha laga qabsan karaa wax ka socda SSC ma laga qabsan karaa wax ka socda gobolka Bayma laga socda Soomaali oo dhan maanta waxa ka socda dagaal qabaliya waxa bilowday hub gadashadii ugu tirada badneed la sameeyay madaxweynuhu wadankan meesha ku wada hal uma aha waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inay ogaato doorasho qof iyo cod inna ma diidana laakiin in wadadeeda la maraa muhiim ah wadada la maray ma aha sharci iyo jujuub iyo baarlamaanka inta lagu dhaaf bulshada Soomaaliyeed xoreyn bay u baahan tahay nabadeyn bay u baahan tahay dib u heshiisiin madaxweynaha kama hadlin ilaahay idinku dharshay shalay kaliya meeqa ku dhintay oo galgaduud meeqa ku dhimatay oo mudug maxaa ka socda SSC deegaanada maxaa ka socda waxay ahayd in maanta baarlamaanka fasax degdeg la geliyo deegaanadooda aadaan dib u heshiisiin ay ka bilaabaan doorasho suurtagal ma aha ma shaqaynayso cod badni cod yari maaha hadii la shaqaynta wax muhiimad ay sharciyad ma tahay sharciyadu waxa suudan ay ma noqonayso marka anaga waxaan ka digaynaa dawlad goboleedyo sharci darro markii saddexaad koonfur galbeed aan ka soo jeedo waa markii saddexaad madaxweynaha November kasta hal sano u kordhinaya war sharciga intuu ka jira meel uu ku qoran yahay madaxweynaha noo sheego in dawlad goboleedyadu November kasta uu kordhi hadii ay taas socotana wadankan wuxuu aadi doonaa meel halis ah waan ka digaynaa dadka Soomaaliyeed aqliga u saaxiibka ha ka tashtaan wax soo waa la dhageysan karaa ma aad u maasantiin